magacaygu waa Cabdilaahi Xasan Ganay waxaanad ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijkeennii COVID-19 ee aynu wacyigelinta ku sii dayn jirnay maantana barnaamijku waxa uu ka hadli doonaa baaritaanka iyo muhiimadda uu leeyahay maadaama suuqyadii la furay masaajidadii la furay waxa laga yaabaa inuu xanuunku kor u sii kacay ayaa dhici karta marka haddii baaritaanku bato waxay xakameynaysaa xanuunka oo aad u dadaasho afka xidhashadiina waa sidii salaanta iyo hagta iyo alla waa hebel iyo heblo oo nambaryaha isarag ha dhayalsanin qofka qaba ma ogid adigu inaad qabto isma ogid anigu inaan qaba ma ogid aday ku fiican tahay anay ku ficday waxaan la hadlayaa waa adiga inaad ogaato xanuunka inaadan qabin ama aad qabto waxay caawisaa in xanuunka la xakameeyo marka laga baarayo xanuunka COVID-19 sanka ayaa waxa laga galin doonaa walax dheer oo dareere ka soo qaadaysa xagga dambe ee sanka taasana la baari doonaa run maaha sida dadka qaar sheegayaan oo marka laga baarayo COVID-19 baashaasi maskaxdaada ma taaban doonto sidoo kale in xanuunka COVID-19 kama qaadaysid in laga baaro arintaasina run maaha waxa aad iska baari kartaa xanuunka COVID-19 waa lacag la'aan uma baahin inaad kaar caafimaad haysato xarumaha qaar waxay qaadayaan copay ama lacagta yare qofka kaarka caafimaad haysta uu hore ka bixiyo marka waa bilaash waana kaar caafimaad looma baahna cusbitaalada qaad ama waxaan u jeedaa ama xarumaha qaar ayaa waxa laga yaabaa inay qaadaan copay markaasi aad ogaatiin xarunta adiga ku dhowi ay qaadayso copay in kale siiwac xarunta internet marka lagu baaro xarunta laga baaray waa inaad weydiiso xilliga jawaabtada heli doonto inta badan xarumuhu dadka markay baaraan waxay ugu soo jawaab celinayaan waa khadka telefoonka marka waxaanu dadka ku dhiirigelinaynaa inay ka jawaabaan telefoonada soo galayo dhan hadii ay garanayaan iyo hadii ayna garanaynba si aanu koolka uga iman doono dhakhtarku ama xaruntii baadhay aanu u dhaafin sidoo kale baaritaankan waxa aad xoog loo saarayaa meelihii ay ka jireen mudaharaadada ama dadkii iskugu imanayay inay nadiifiyaan meelihii mudaharaadadu ka dhaceen ama dadka banaanbaxyada iskugu yimaada ama dadka degan saraha dhaadheer ee elevatorada wada qaata waxa soo dhan dadkaas isku malaynaysan ku jirto waa qasab ilowina isbaadho hadii kalena waxaba fiican oo meelo badan state-ka Minnesota oo dadka ku dhiirigelinayaan inay isbaadhaan hadaba si aad u ogaato xarunta aad ka baadhi karto waxaad website-ka halkan hoose ku qoran ku dhufo guji gali address-kaaga ama magaalada degan tahay waxa ku soo bixi doona meesha aad ka baadhi doonto dhan marka aan ku celiyo waxaad ku qortaa website halkan ku qoran ku dhufo halkaas baad ka heli doontaa magaalo kasta inta la iska baari karo xarun kasta oo ku taala Minnesota oo COVID-19 ku jiro iyo ta adiga ku dhawaatay karto halkaas aad ka waan kartaa haddaad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida looga hortago xanuunka coronavirus iyo waxyaalaha kale ee ku saabsan ee sida joogtada isku bedelaya waxaad kelmadda ha qoraal ahaan ugu soo dirtaa telefoonkan 612 afar toddoba afar laba laba sagaal eber mar kale aan ku celiyo waa 612 afar toddoba afar laba laba sagaal eber aad u mahadsantiin